noo tahay maanta in aan marti gelinayno runtii wafdi ka socda dalka Qatar oo runtii kulan taariikhi ah ay la qaateen ra'iisul wasaaraha waxaan runtii aan halkan aan ka dareemaynaa hawlihii hore u socday mudane ra'iisul wasaare oo bishii July aan ku tagnay Hobyo iyo Baraawe oo aan uga hadlaynay dhismaha arrimaha ku saabsan dekadaha iyo wadooyinka dalka Soomaaliyeed ma lagu horumarinayo dhaqaalaha iyo isdhaxgalka inay runtii ay arin bilow wanaagsan ay tahay maantana aan arkayna inay noo yimaadeen madaxdii ama mas'uuliyiintii ka socday dalka Qatar si ay hawshaasi u hirgeliyaan ama ay u dhameystiraan hawlihii hore loo bilaabay haddii ay ahaan lahayd wadooyinkii la bilaabay hadda dhismaheedii socda haddana waxa inoo socda maanta ay u socdaan wafdigaani in ay marka ay soo bandhigaan goorta aan ku haminayno in aan bilowno dhismaha dalka dekada Hobyo oo runtii ahmiyad weyn inoo leh dhinaca dhaqaalaha iyo xiriirka soo jireenka aan la wada leenahay dalka Qatar taasoo runtii xiriirkaasi ay badin doonto dhinaca shaqo abuurka dhalinyarada ama horumarinta bilicda wadanka ama horumarinta dhinaca shaqaalaha ama shaqo abuurka dalka taasoo runtii ahmiyad weyn inoo leh. شكرا جزيلا سعادة الوزيرة، أنا سعيد جدا بمقابلتك وسعيد جدا بوجود رئيس مجلس الوزراء وسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء. اليوم تتويج للعلاقات الثنائية التي ومذكرات التفاهم اللي وقعناها العام الماضي كما أشرتي في حديثك، وكذلك متابعة حثيثة للمواضيع المهمة. احنا سعداء جدا أن تكون موانئ قطر إحدى الموانئ ومن أهم الموانئ التي نستثمر فيها وهي ميناء هوبيو. هذا الميناء إيمانا منا وكذلك دعم لاستقرار الصومال وإيمانا منا بالمستقبل الزاهر لهذه الموانئ وموقعها الاستراتيجي. سعداء جدا أن تكون شراكة ثنائية بيننا كحكومتين، وإن شاء الله التكنولوجيا المستخدمة في هذه الموانئ راح تكون من أعلى التكنولوجيا المستخدمة في هذا المجال في العالم، وإن شاء الله يبدأ الاستثمار المباشر من الآن. سعداء جدا أن نكون متواجدين بإعلان هذا الاستثمار المهم للدولتين. أشكركم جزيلا على حفاوة الاستقبال، وإن شاء الله نتطلع إلى مزيد من العلاقات الثنائية في جميع المجالات بين دولة قطر وجمهورية الصومال الشقيقة. أشكركم جزيل الشكر.